bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad ka daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyay xiisad ka taagan Beled Xaawo iyo Mandheera oo laad ka jirtay deegaano ka tirsan Hiiraan oo la soo afjaray madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedinaya shir madaxeedka Afrika madaxweyne Farmaajo oo kulamo ka wada Addis Ababa wafdi uu hogaaminayay madaxweyne Biixi oo kaaray Ethiopia iyo Senator Moses Sudi iyo Laxo oo afka furtay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka inta uu socdo intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkarona imikana ku soo dhawaada isagii oo fidsan waxaa soo baxayay warar sheegaya in xiisad dagaal ay ka taagan tahay degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera taasi oo u dhaxaysa ciidamada ay dhawaan dowladda Soomaaliya geysay Beled Xaawo iyo kuwa maamulka Jubbaland ciidamada Jubbaland oo hogaaminayo wasiirka amniga maamulkaasi Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa waxaa la sheegay in fariisin ka sameysteen magaalada Mandheera ee dalka Kenya isla markaasna ay halkaasi ku ilaalinayaan Cabdirashiid Janan wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay isku urursanayaan xadka labada dal waxaana laga cabsi qabaa in uu dagaal dhex maro ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo dowladda Soomaaliya ay soo saartay waaran lagu soo xirayo ayaa waxa uu degan yahay hotel ku yaala magaalada Mandheera waxaana jirta cabsi ku aadan in ciidamada dowladda ay hotelka ku weeraraan dadka ku sugan magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera ayaa waxa ay sheegayaan in waxay dareemayaan cabsi badan oo ku aadan in uu dhaco dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland waxaana xusid mudan in xaafadaha qaar ee Beled Xaawo laga barakacayo dowladda Soomaaliya ayaa horey Kenya waxa ay ugu eedeysay in ay ammaan geliso Cabdirashiid Janan sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhinaca ammaanka gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji uu shalay sheegay in haddii Kenyaanka ay faragelinta ka diin weyso ay ka wado gobolka Gedo in ciidamada dowladda ka soo casheen doonaan magaalada Nairobi ayaa lagu yiri waa hagaag weli waxaad dhageysanaysaan afafka hore ee barnaamijka Soomaali Banaadir TV dhanka kale taliska qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in ay soo afjaraan colaad u dhaxaysay labada maleeshiyo beeleed oo ku dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo ka soo kala jeeda degmooyinka Beledweyne iyo Matawaan ee gobolkaasi Hiiraan kulanka colaadaasi lagu soo afjarayay oo lagu qabtay degmada Matawaan ayaa waxaa ka qayb galay taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad Generaal Mascuud Maxamed Warsame iyo odayaasha labada beelood labada maleeshiyo beeleed ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaano duleedka ka ah degmada Matawaan ee gobolka Hiiraan waxaana dagaalkooda uu ahaa mid ku bilowday dilal aanooyin qabiil ah taliyaha guutada 15aad ee taliska qaybta 21aad Generaal Mascuud Maxamed Warsame ayaa sheegay in taliska uu ku mashquulsanaa xal ku gaarista colaadda soo jiitamaysay in muddo ah haddase xal waara laga gaaray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in ay dhaqan gelin doonaan heshiiskaasi iyaga oo goobta ku kala qaatay mag ama diyo loo bixinayo dilalka ay beelaha kala geysteen waa tahay dhanka kale gelinka dambe ee maanta oo Isniin ah ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo meertada 33aad ee shir madaxeedka Midowga Afrika oo ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia shirkani waxaa Soomaaliya u matalaya wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaana looga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda ka jirta dalalka Afrika si gaar ah caqabadaha ka jira wadanka Koonfurta Suudaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu maanta shirkaasi ka jeediyo khudbad uu kaga hadli doono guulaha ay gaartay Soomaaliya muddadii la soo dhaafay caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha u baahan in sida wadajirka looga faa'iideysto qaarad ahaan sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi waxa uu ka sii wadi doonaa kulamo kala duwan oo uu la qaadan doono madaxda ka qayb galaysa shir madaxeedka wadamada Afrika ee ka socda magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia daawadayaal weli waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkeena Soomaali Banaadir TV iminkana Jubbaland madaxweynaha Jubbaland oo dib ugu soo laabtay Kismaayo
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wafdiga Axmed Madoobi ayaa waxaa garoonka dayuuradaha Kismaayo kusoo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo dadweynaha magaalada Kismaayo. Axmed Madoobi ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu kulamo kala duwan la qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta saameynta ku leh Soomaaliya. Xubnihii uu la kulmay ayaa waxaa ka mid ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Mr. Yamamoto, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani oo isna muddo ku sugnaa halkaasi. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Dhinaca kale, wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Biixi oo gaaray Itoobiya. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayay oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay dalka Itoobiya. Waxaana wafdiga halkaasi ku soo dhaweeyay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Itoobiya, waxayna qadar nasasho ah ku qaateen qolka martida ee airport-ka, waxayna uga sii gudbeen halkii loogu talagalay martida madaxweynaha. Sidoo kale waxaa wafdiga halka kaga soo biiray wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin safaaradda Somaliland ku leedahay dalkaasi. Dhinaca kale, Senator Muuse Suudi Yalxo oo ka mid ah xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa ku dhaliilay dowladda dhexe Soomaaliya xayiraadda inta badan la saaro dayuuradaha aada qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in hay'adda duulista rayidka ah ay noqoto mid madax bannaan oo aysan adeegsan shakhsiyaad dano gaar ah leh. Dowladda dhexe ee Soomaaliya ayuu sidoo kale ku eedeeyay in si aan habboonayn in ay ku maareyso dhaqaalaha ka soo baxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya oo maamulada oo lagu keenay si siman. Senator Muuse Suudi Yalxo ayaa yiri dayuuradaha hawada laga celinayo dowladdan ayaa ka aragnay. Hadalka xildhibaanka ayaa yimid xilli maanta ay xildhibaanada golaha aqalka sare ee ansixiyeen sharciga duulista hawada Soomaaliya.